Hello YouTube. Please comment below, like and subscribe. You'll know what to do. Well, until then, take care. أبو فلح Soomaali miya? Guys, inta aanan idin tusin Abu Falax jawaabta uu bixinayo oo ah inuu Soomaali yahay inuu Soomaali ahayn iyo dad badan oo cadeemo keenay in Abu Falax uu Soomaali yahay ama inuusan ahayn. Horta waxaan rabaa inaan idin tuso sawir uu Abu Falax soo geliyay social mediahiisa. sawirkaasna waxa waa Abu Falax oo yar okay. sawirka backgroundkiisa waxaa laga arkayaa inay sariir taalo. sariirtaasna waxa dul saaran waxa ila tahay ani inay tahay baati. Okay, anigoo baati bay ah say baati kale u garanaynin. Come on now. horta taas waxay ila tahay in Abu Falax Soomaali yahay. Guys, let me know commentiga haddii adinkana u maleynaysiin inuu Abu Falax Soomaali yahay. So waxaan arkay dad badan oo ka hadlaya Abu Falax inuu Soomaali yahay iyo inuusan Soomaali ahayn. Anaga Soomaalida kaliya ma ahan cid ku wareersan Abu Falax meesha uu ka yimaaday. Carabta xitaa waa ay ku wareersan yihiin. laakiin carabta waxa ay u maleeyaan Abu Falax in uusan ka soo jeedin Kuwait ee uu maybe ka soo jeeday Sacuudiga. sababtana waxay tahay Abu Falax luqadda Carabiga uu ku hadlaa, laakiin lahjada uu ku hadlo waxa ay ka soo jeedaa Sacuudiga. sidaas darteed ay ugu maleeyaan in Abu Falax uu Sacuudiga ka yimaaday. sababta kale ee dad badan oo Carab ah ay u maleeyaan in Abu Falax uu ka yimaaday Sacuudiga waxa ay tahay markii Abu Falax uu ka hadlay dadka ugu badan ee janaalkiisa ku xiran waxa uu yiri dadka ugu badan waxa ay ka soo jeedaan Sacuudiga. فيحتل المركز الأول بكل جدارة بنسبة 32.6%. أكثر عائلة لأبو فلح المملكة العربية السعودية. فيديوغا waxaa idin ku tusi doonaa Abu Falax asagoo ku hadlaya af Soomaali iyo waxaad arki doontaa asagoo ka jawaabaya su'aalo la weydiiyay oo la yiri adiga wadankee ka imaatay. waxaan kaloo idin sheegi doonaa sababta aniga baati bay ahaan aan ugu maleeyo Abu Falax maybe, okay? waxaan dhahay maybe inuu Soomaali yahay. hadda waxaan idin tusiyaa gabar YouTuber Carabiyad ah oo YouTube channelkeeda la yiraahdo Sara Jow 2 waxa ay sameysay video ku saabsan Abu Falax. videogaas waxa uu gaarayaa 25 daqiiqo. title-na waxa uu ka dhigtay Abu Falax Soomaali miya. videogan waxa uga hadlaysaa wax badan oo ku saabsan Abu Falax. Sara videogeeda waxay ku sheegtay maybe Abu Falax inuu Soomaali yahay ama inuu Masaari yahay. sababta ay Sara ugu maleyso Abu Falax inuu Soomaali ama Masaari yahay waxay tahay waxa ay tiri Abu Falax magaciisa familiga ah ama his family name waxa waa Suleymaan. magac family name Suleymaan ahna waxa ku badan ay tiri dadka Masaarida أما الصومالية. ما هي أصول عائلة سليمان؟ أول مكان وهو مصر. يس، في عندهم قبيلة هناك سليمان معروفين كثير بمصر. والثاني بالصومال. سارة waxa ay soo qaadatay sawiro ay leedahay waa dad Masaari waxa ayna isku barbar dhigtay muuqaalka Abu Falax. sidoo kale waxa ay soo qaadatay sawiro dad Soomaali ah iyadoo isbarbar dhigtay Abu Falax in uu Soomaali u egyahay in kale. هذول بمصر وهدول صور أبو فلاح. أكيد ما فيش تشابه في ملامح الوجه، ما فيش ولا تشابه. dadka Soomaaliga ee soo qaadatay Sara waxa ku jira madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Farmaajo. هذه صورة علي سليمان وهذه صورة أبو فلاح. فهمتوا إيش أقول؟ في شبه كبير جدا. وكان أبو فلح أيغو dadka daawadayaashiisa ay weydiinayeen su'aalo badan oo ku saabsan wadanka uu ka imaaday. هذا سعودي مو كويتي. كويتي هو صح، مو كويتي بحريني. سعودي عايش بالكويت. حجي وين كويتي؟ سوداني مدري صومالي. قلبي اللي بالكومنتات لا تألفون، واحد يقول مقيم سوداني، واحد يقول صومالي عايش بالكويت، واحد يقول سعودي هو كويتي يسولف سعودي لأنه ربع سعودي. والنعم فيه. ثانيا سوداني مو كويتي. لا والله ما أعرف عبالي هندي. يا أخي هذا كويتي، هذا صومالي، هذا سوداني. طيب سؤال، ليش ما حد يقول هذا لبناني؟ sidoo kale bilowgii 2022 Abu Falax waxa laga wareystay TV-ga MBC oo lagu weydiiyay su'aalo badan. su'aalahaasna waxa kamid ahaa sababta uu Abu Falax uga wareegsado in uu ka jawaabo su'aasha la weydiiyay mar walba taasoo ah wadankee ka imaatay. waxa uu na dhahay Abu Falax انت من وين وليه ما بتحكي انه من وين؟ اوكي أنا من وين؟ هذا السؤال وصل لي كثير. الشيء اللي يخليني ما أجاوب على السؤال هذا وطبعا أنا أعتز بأصلي، هذا شيء لا ما يحتاج إني أتكلم فيه. بس السبب اللي يخليني لأنه مو مهم الناس تعرف أنا من وين، مو مهم الناس تعرف الشيء هذا، المهم الناس تعرف أخلاقي والشيء اللي قاعد أقدمه والمحتوى اللي قاعد أقدمه، مو مهم إنهم يعرفون أنا من وين جاي. sida aragnay Abu Falax mar walba waa uu diidaa in uu ka jawaabo wadanka uu ka imaaday. waxa uu dadka ku dhahaa aniga ma fiicna inaad igu barataan wadankan ka imaaday
waxaan jeclahay inaad igu baratiin qof ahaan ama inaa ahay bini aadan qalbi fiican haysta. والله شوف اولا ما حد قال انك كويتي وما حد قال انك سعودي وما حد يدري شنو جنسيتي هذا احلى شيء مو مهم انك تعرف جنسيتي يا عزيز المشاهد المهم انك تعرف اني انا انسان sababta ay dad badan ugu maleeyaan Abu Falax in uu Soomaali yahay ma ahan kaliya in uu Soomaali u eg yahay ee dad badan ayaa arkay in Abu Falax uu ku hadlayo af Soomaali. وصلنا اليهم شوف ما شاء الله تبارك الرحمن صوماليا وريا وانكو جعليا وريا والله وانكو جعليا aniga baati bay ahaan sababta ugu maleynaya Abu Falax in uu Soomaali yahay waxa ay tahay Abu Falax markii uu soo galiyay YouTube channelkiisa video uu ku dabaaldegayo in uu gaaray 6 milyan subscribers waxa kamid ahaa waxyaalihii uu sameeyay in walaashiis uu iibiyo gaari. Abu Falax waxa uu daawadayaashiisa ku tusay videogaas dhexdiisa in walaashiisa ay u soo dirtay video ay ugu soo dirtay WhatsApp-ka. Videogaas waxa ay ku dalbanaysay nooca gaariga ay rabto in walaalkeed Abu Falax uu iibiyo. Videogaas WhatsApp-ka ay walaashiis u soo dirtay Abu Falax waxa uu isku dayay in uu magaca walaashiis qariyo, laakiin waxa jirta sakana yar oo uu iloobay markuu edit gareynay videoga in uu qariyo magaca walaashiis. Magaca walaashiis aniga aan ka dhex arkay videogaas dhexdiisana waxa ku qoran Ifraax. waan ogahay magaca Ifraax inay dad badan oo Soomaali ah iyo dad badan aan Soomaali ahaynba ay baxsadaan, laakiin aniga baati bay ahaan waxa ila tahay magacaas inuu maybe Soomaali yahay. Okay, waxaan dhahay maybe wuu yahay madhin, laakiin maybe inuu Soomaali yahay. Sidaas ayaan aniga ugu sii maleeyaa Abu Falax inuu Soomaali yahay maybe. السلام عليكم. قبل كل هذا قبل لا افرح بال20 مليون واصور ردة فعلي وانزل مقطع ال20 مليون قاعد احاول اخلص مونتاج المقطع ال20 مليون عشان انزله قبل لا ادخل ال21 مليون.